dhalinyaro soo dhawaada waa Maamud Maxamuud halkaan waxaanu ku eegaynaa tobankaas erey meesha noo saaran ereyga koowaad waa competent waxa la yiraahdaa qofka xirfadda leh gacantiisa ee fadhida okay qofka wixii loo dhiibay si fiican u qaban karo xirfadiisana ay fadhida ayaa waxa la yiraahdaa competent waxay isku macno yihiin skilled opposite keedana wuxuu noqonayaa incompetent haddaan jumlad galiyo waxaan leeyahay he is a competent doctor isaga waa dhakhtar xirfad leh maadee kale we need a competent driver waxaan u baahanahay darawal xirfad leh ereyga labaad waa compliment waa ammaan okay ammaanta ayaa waxaa la yiraahdaa compliment qofka yani wax wanaagsan ka sheegay waxay isku macno yihiin praise yes for example waxaan leeyahay I love receiving compliments waan jeclahay in la yamaan okay ammaanta waan jeclahay she complimented my new dress waxay ammaantay dharkayga cusub ereyga saddexaad waa comprehensive waxaa la yiraahdaa yani wax markaas si qoto dheer ama si mug dheer ama si guda ah aad u baartid ama wax ugu qortid baa la yiraahdaa comprehensive waxa la qoray ama report ha ahaato ama qorshe ha ahaato ama cashir caadi iska qoranaysa ha ahaato yes waxa la yiraahdaa comprehensive yes for example the report was comprehensive warbixintaas waxay ahayd mid mug weyn mid si qoto dheer loo soo baaray it was complete yes complete okay ereyga afraad waa concrete laba wax baa la dhihi karaa wax la taaban karo dhanna concrete waa la yiraahdaa okay naxwaha marka la joogo noun-ka laba u kala baxaa waa noocyo badan yahay waxaa ka mid ah noocyadiisa concrete noun oo ah wax la taaban karo iyo abstract noun oo ah waxaan la taaban karin wax la taaban karo waxaa ka mid ah kursiga buugga qalinka kabta yani wax la taaban karo waa solid adke la taaban karo waxaan la taaban karin abstract noun waxaa ka mid ah nacaybka jacaylka deeqsinimada farxadda murugada waa uu la dareemaa laakiin lama taaban karo kaas amal waxa la yiraahdaa abstract concrete waxa kale oo loo isticmaalaa shubka guri marka la dhisaayo shubkiisa waxa la yiraahdaa concrete yes for example qof wuxuu leeyahay the floor is made of concrete floor ama dhulka wuxuu ka samaysan yahay shub yes ama hadii kale wuxuu leeyahay we need concrete evidence waxaan u baahanahay caddeyn la taaban karo soo ma aragtid yes congestion waa jam markii meesha dadka ku bataan buuq fara badan yimaado jam yimaado ayaa waxa la yiraahdaa congestion overcrowding waa la dhahaa yes anaga hadda sujuunahana jam ba aad u naqaana yes for example waxaan leeyahay congestion made us late jamka wuxuu naga dhigay kuwa soo daaha yani jamka ku soo daahan ereyga lixaad waa conquer waa qabsasho yes ina meel qabsatid yes to take control of somewhere they conquered the city waxay qabsadeen caasimadda okay we must conquer our town waa inaynu qabsano magaaladeena yes conscientious waxaa loo isticmaalaa qofka taxadarka badan yani somebody who is very careful yes waxa loogu talagalana qabto qofkaas waxaa la yiraahdaa conscientious waxaa kaloo la yiraahdaa diligent careful conscientious diligent dhammaantood waxaa loo isticmaalaa qofka taxadarka badan qofka bilaa taxadarka ah waxaa la yiraahdaa careless yes okay for example she is a conscientious student iyadoo waa arday taxadar badan yes ereyga sideedaad waa conservative waxaa la yiraahdaa qofka dhaqankiisa iyo caadadiisa ku dhagan yes somebody who is traditional iyo conservative waxaa qofka caadadiisa dhaqankiisa waxa uu aaminsan yahay ku dhagan afarta farood iyo adimaha ku qabsada ayaa la yiraahdaa conservative for example he has conservative clothes or she wears conservative clothes waxay xirtaa dharka dhaqankii hidaha yes ereyga sagaalaad waa constitute waa waxay wax ka samaysan yihiin tusaale teamkan waxaan buu ka samaysan yahay doorshadan waxaan bay ka samaysan tahay dhammaantood waxaa la yiraahdaa constitute yes for example waxaa dhahaya 5 players constitute a team 5 players 5 ciyaartooy constitute waxay samayn karaan a team koox bay samayn karaan yes the last word ereyga u dambeeyo contest waxa waayo tartan yes tartan waa taqaanaa contest ayaa la yiraahdaa waxaa kaloo isku macno yihiin competition iyadana waa tartan yes he won the contest wuxuu ku guuleystay tartankii anigu waaga high schoolka adiga